waxaan ku bilaabayaa muddo ku dhow 5 saacadood oo xiriira maanta waxaa ku dagaalamaya magaalada Muqdisho ciidan ka wada tirsan dowladda federaalka ee Soomaaliya waxa ay ciidankaasi si gaar uga dagaalamayeen xaafad kala qaybisa degmooyinka Kaaraan iyo Cabdulcasiis Mooran dhul la xiriira iyo dagaalkaasi ka bilowday mar dambe waa uu sii xoogeystay ilaa ay labada dhinac ay hub iyo gaadiid kala qabsadaan ugu yaraan 4 qof ayay iska dileen tirada kale oo dad shacab ah oo gaaraya ugu yaraan 5 qof oo kalena waa ay dhinteen inta ugu badan dadka waxa ay dhibaatadu ka soo gaartay iyaga oo guryahooda ku sugan rasaas wiifta oo haleeshay dadka ugu badan waxay ku dhinteen degmooyinka Kaaraan iyo Shibis oo la sheegay in rasaas wiifta ay guryahooda ugu tagtay sidoo kale Cabdulcasiis xaafado kamid dad ayaa ku dhintay kuba kalena way ku dhaawacmeen keenan waxay la hadashay qaar kamid ah qoysaska ay dhibaatadu gaartay ee halkaas caruurta ku waayay waxayna sheegeen in dowladda federaalka ee Soomaaliya uga baahan yihiin in dibkan dhacay ee wax ka qabato si uusan dib ugu soo laabanin Cali Cumar Cirre oo loo yaqaan Cali Askar waxa dagaalkaasi uga dhintay wiil yar 3 sano jir ah oo awoow u yahay wuxuu sidoo kale arkay 3 qof oo kale oo caruur ah oo dugsi laga soo daayay kuwaas oo degmada Shibis ku haleeshay rasaas wiifta ah una geeriyooday dhibaatadii gaartay ma faakay anuga asoo feegan ka tagay dagaalada markay bilowdeen mar in 3 saac bar amal ku aadanta 8 saac hay anugiyo xoolaa canjeer iyo waxaas oo loo dhigdhigay wax meeshu qada la sii haya abad wiifta meelay ka timid iyaan la ogeynay geedaha iyo dabaqan hormuud inta soo kormarta anaga xaafada Shibis xaafada Ismaan Heshiban deganahay hay wadnaha midigta inta ku dhacday beexda fata ka tiri waa garta marka haddii Ilaahay yiraahdo waa aasnay garabta dadka jumcaale la geeyay waa ka keenna waa dhintaaliyo waa aasnay waa nabad qabnaa hadda quraan akhrisaarna inaan galno wax yar kadib nimankaas dagaalka wado oo lagu sheegayo inay ku dhulbayaan dhulyow iyo ciid iyo ku dhulbaan iyo deegaano umada dibay u geysteen waxaan rabnaa islaamka inay ku baxaan nimankaas la qabto mooryaanta ah nimana khiyaara ma aan dad badan xafadan Shibis meesha hadda la leeyahay yaa sheegay 2 wiil ku dhimatay oo kale oo wiifkaas dishay oo yar yar ilmo ah oo dugsileeya ay marka arrimaha sajar xuseen waa dibaan ku qabnaa dadweynaha dibay ku qabaan dagaalka lama rabo dagaalka inuu bilaa macna isaga dhaco waaya marka waxa iga warantaa imisa jir ayuu ahaa wiilkan adawaa wahed 3 jir waa canuga hadda soo hanad qaaday aad u baashalay dugsiga marhab inaan geeyo 3 sano u jiray anuu fiican oo maata Ilaahay fahmasiiyay oo wax garto oo hadlaayo oo wanaagsan u ahay waa guriga joogay saakay asoo iska quraacanayo oo quraacnayna waqti qadaynayo hadii la ku rooyaha arrintaas dhacday waya marka labadan qof ee kale aad leedahay caruur ahaayeen wiifta dishay ayagana ma isla xaafada unba mise waa area xaafada masaajidka rawda masaajidka sokeeyo yaa sheegay nin yiraahdo oo joogo oo Qaasim Haji Naajil yiraahdo oo xaafadiisa oo hadda anay wax yar saas ii jirto meeshaas ay joogeen ilmaha dugsiga ka yimideen labada canugay waa isla socdaan garba socdeen nin madaxay ka gashay waa dhintay isla markii ninna hadii Ilaah ku rooyahay waxa waaye waa dhinac socdo hadii Ilaah ku raac calooshay ka gashay leeyahay min ciiradii waxa soo goysay tareeso oo waxa lagu sheegay baalkan qorgaan dheereey maxaa la yiraahdaa mishaar leh waaya waxa iga warantaa dad kale oo dhaawacyo ah ama dad ka barakacay saameyn intee leeg xaafada intuu u geystay dadka waa barakacay saakay waa barakacay maanta dad badan barakacay hadii Ilaah yiraahdo waana la cabsaday meeshuna waxa waa meel waxay noqotay oo yoola maxaa yeelay guriga dabaqada ahaayo bacadka korkiisa ayaa la qarado mishaar iyo baasuukayaal dadka looma aabayeen waxa la rabay hadii la dagaalamayo banaankaas in la aado meeshaas ay ku kala haraanayeen maana shacabka dhaxdiisa inay ku dagaalamaan ma ahayn wax dhaawacyo wada aragteen ma jira waa arkay galabta isbitaalkan ku arkay oo Dr. Jumcaale dhaawacan ku arkay waxaana waa wiiftadaasay u baneed wixii dhaawac ahay marka dadkaas in loo dhimriyo dadkan u dhimriyo Ilaahay nagu reeb dhigo nagu dhinac dhigo iyaguna ay dadkan ay ka fikiraan oo ay dhahaan hadii Ilaah ku rooyahay waxyaalaha dagaalka lagu dagaalamayo iyo say u dagaalamayaan in qaab kale u yeeshaan maana dadka shicibka dhaxdooda waxyaabo dana interest gaar in lagu xeeyo taas anaga waa ka horjeednaa hadaan shacabnahay iyo odayaasha xaafadaha waxaan rabnaa in Allah la cid wax ka qaban karto oo Soomaaliya oo idinka aad ka mid tihiin qaybta warbaahinta
in dadkaas tawciya in la siiyo hadday dawladda awood u leedahay inay wax ka qabato haddii dad kale ay joogaan oo maaragtay dadkaas ay wax ka qaban karaan ay ka qabtaan mudaaratoolaha gobolka banaadir oo dhexgala arrintaas dadkaas waxa waaye annaga waxaan ka nahay ashkakaan ka nahay xuseen way ugu dambeyn maadaama odayaashii xaafadda aad ka mid tahay weliba dadkii sida gaarka maanta dhibaatada u gaartay oo carruur uga dhinteen aad ku jirtid wixii dagaalamaya intaasoo dhanba waxay ahaayeen ciidan dawladeed weliba 2 sarkaal oo dawladda ka tirsanaa kala hogaaminaya maxaa weeye baaqa aad u jeedinaysa hay-adaha amniga ee dawladda iyo kuwa cadaaladda hay-adaha amniga iyo kuwa cadaaladda ee dawladda waxaan u jeedinayaa in dadkaas haddii wax laga qaban karo wax laga qabto oo haddii ilaah ku raayahay dadkay waa dhibaato inay gayoodaan dadku khalad waay in banaadin mutad muwaadin ah gurigiisa joogo laisku xabadeeyo dushiisa wax loo dul qaadan kara maaha 19 iyo mashaakiladii la soo maray iyo birihii dambe iyo waxa dagaalada waa ilowna hadda annaga dagaal kale ma rabno ninkii dagaal rabo waxa waa qaab ugu dagaalamo waa jirta xuduudada hadda wadanka ha difaaco ummadda waxa u qabto saraakiishan dagaalamayso danahooda u dagaalamaysa ha joojiyeen dagaalkaas ha joojiyeen islaamnimada ha ilaalshaan walaaltinimada ha ilaaliyaan ummadda ha u turaano hana naga joojiyaan dagaal uma baahnin علي عمر عرّ oo loo yaqaan cali askar oo kamid odayaasha ku nool magaalada muqdisho si gaar ah wuxuu kamid ah qoysaskii ay caruurta uga dhinteen dagaalkii maanta ciidanka wada tirsan dawladda federaalka ee Soomaaliya ku dhaxmaray degmada Kaaraan ee gobolka Banaadir xubno kamid ah militariga Soomaaliya ayaa lagu eedeeyay in dagaalkii maanta ay qayb ka ahaayeen hase yeeshee warar goor dambe la helay ayaa xaqiijinaya in Abuukar Cali Maxamuud loo yaqaan Abuukar Boolo oo kamid ah militariga Soomaaliya oo gelinkii hore ee maanta warbaahinta qaar ay sheegeen inuu ka tirsanaa saraakiishii dagaalkaasi qaybta ka ahayd waxa ay wararka soo baxay sheegayeen inuu san qayb ka ahayn kuna lug lahayn dagaalkaasi hase yeeshee oo kamid ah xubno kamid ah militariga Soomaaliya oo dagaalkaasi ku baxay sidii loo qaboojin lahaa ama dhinacyadii dagaalamay loo kala dhaxgali lahaa keenin waxay saxaysaa war maanta ka baxay aha in Abuukar Boolo oo kamid ah dhinacyadii dagaalkaasi qaybta uga jiray hase yeeshee waxa uu xaqiijiyay in dagaalkaas uusan ka mid noqonin balse uu qayb ka ahaa saraakiil ku baxday oo xal ka dhex raadinayay dhinacyadii dagaalamay Abuukar Cali Maxamuud telefoonka ayaan kula hadlay waxaana weydiiyey bal inuu iga warramo dagaalkii maanta walaalow ninka la yidhaha arrintaas horta dhacdadaas waa ninka la yidhaha shilkaas waa ka dhacay Kaaraan dhimasho iyo Kaaraan weliba ma ahan degmada Cabdicasiis waayo meesha uu ninka la yidhaha ka dhacay shilku gaar ahaan qaybta eriyada oo maxaa la yidhaha Kawaan Bari oo Cabdicasiis waxaa ku dhintay niga dadna waa ku dhintay dadna waa ku dhaawacmay aniga waxaan uga faahay niga la yidhaha mar adiga 7 saac 6 saac waqti ay taal niga la yidhaha leeyahay waxay soo wacay niga la yidhaha General Axmed Rago kamid yahay General Qafu Rago kamid yahay maamulka iyo niga la yidhaha saraakiil kala duwan maxaa ugaaska arrintaas isoo wacay xagee joogtaan gurigeygan jooga imaad niga la yidhaha meeshaas waxaa dhacdo shilkaas niga la yidhaha xabadaas isaan u joojino muxuu ahay arrintii adiga teleefanaan raadiyay qof aan hadda teleefon ka yara garaayo meesha xabad ka wado waa gara waayey waxaa ii yimid haddana gurigeygaba laygu 6 sargaal iigu timiday waa baxna 7 saac iyo bar waqti ay tahay waxaan tagnay meesha la yidhaaho Cabdicasiis saraakiil badanaan ugu tagnay halkaasaan wada joojiyo xabadii ilaahay amarkii waa la joojiyey halkaasaan ku dhamaystiranay markii aan xabadii joojinay oo aan soo dhamaystirnay waxaa noogu yimid ciidamada military oo gaar ahaan qaybta oo maxuu ahay gorgor Turkish home waa arrintii waa ku guulaysanaan dhahnay saraakiisha iyo jananadii waa maxaa wixina waa kala qaadnay waana dhamaatay arrimahaas sidaas baan aan ugu warbixinay waxay yidheen geeya meeshii halkii aan soo marsiinay oon geynay meeshii wuxuu ka dhaceen waxaan ku soo naqanay guriga oo maxaa ugaaska halkaas aan ku tagnay guriga ugaaska markii aan tagnay waxaan gudagalnay waxay ku dhaceen iyo wixii wax la kala qaatay iyo wixii adiga niga halkaas ku alaabo adiga xoolal lagu kala qaatay dimashana niga iyo dhaawac intuu la egyahay gaari adiga meesha niga la yidhaaho maxuu ahay
kamid ahay baaruurtida oo dagaalamaysa gaari kamid oo qoladii wadatay iyo qoladii kale maxaa ay qaateen baa la yidhi ninka la dabagalo meesha uu jiray ciddi qaaday ayaa la wacay ugaaska waxaa lagu amray in halkaan la keeno ciddi adiga wax qaadatay waxaa la wacay gaariga waxaa loo qaaday Madiino ciidamo Madiina ka yimid ay waxa qaata gaariga waa la ninka la Madiina loo dabagalay niman hadda aniga inaan magacoora sheego aan qabino ninka la yiraahdo saraakiil adiga heer maamula oo waaweyn ayaa ninka la yiraahdo loo dulgalay halkaas la yiraahdo gaarigi maxaa Madiina uu joogaan laga amray waa laga soo qaaday waqtiyadan waxaa la joogaa guriga ugaaska gaariga uu yaala oo la keenay iyadoo halkaas laga keenay intaas aan ka ogahay anigoo intaas marka aan xaaladaas aan ula socono oo halkaas oo laga leeyahay ula socono waxaan Facebookada ka aragnay inaan ka arkay inaan personal anigu aan kamid ah dagaal qasaaraha aad diiwaan geliseen ama aad ogaateen intuu gaaraya dhimasho adiga laga leeyahay waxaan waxa ka dhimatay saddex ruux oo dhinaciis dagaalaya ah shacabkana maxaa gaaray shacabka ilaa hadda laga leeyahay hal gabar waxaan ku maqalnaa laga leeyahay oo waliba haweenka iyo argisiin ugu tagtay meesha intaas aan maqlaan maxaa hub iyo gaadiid hal waad noo sheegtay maxaa hub oo la kala qabsaday wallahi laga leeyahay waxa laga leeyahay meesha ka dhacdo dad adiga isla joogo isla ceeshayo isla cunayo laga leeyahay naba shaytaan xariire oo hadii la kala qaatay iyo hadii qoriyo la kala qaatay iyo wala adiga laga saacadaha la kala haysta maahan marka waxba inaan hadda laga leeyahay waxa la kala qaatay waxa laga leeyahay inaan kala barabo maxaa waa 5 milyan waxa meeshaas laga leeyahay buuq ka dhacay maxaa hubin la kala qaatana waa waxa saacadahan adiga laga la kala haysan karin waa dad isku hal guri ah marka arintaasna waxa waaye nasiib wanaag dadkii galay oo qabiilaadkii difooyinkii laga leeyahay iyo aduunkiisa isugu xiray adiga general qaafo oo telefoon uga qayb qaadayay iyo duubka laga leeyahay ugaas Maxamed Ali ugaas iyo laga leeyahay general Gacmadulo oo waxay asagana si personal abada idoo dhacayba meesha uu soo istaagay raggaas adiga ka soo qayb galay dawladdu adiga marka arrintii la dhameeyay oo laga leeyahay dhamaatan nasiib wanaag iyo ka qayb qaadanayaday saraakiishaas ugu hormaray oo arrintaas aan ku dhameynay hortoor iyagana waa ku soo dhaweynay halkay ku dhamaadeen waxaan rabaa marka taliye ma waxaa ku dhamaysan saraakiishiinaan qaraabo ahaan iyo qoys ahaan maadaama dadka dagaalamaya dad isu dhow ahaayeen mise dawladaad matalaysan labadaba waa matalayna dawladnimada hadii la matalayna anaga saraakiil qaranaa ku jirta meesha haddii adiga qabiil la matalaa dadku difooseeday ahaayeen waxaana jooga ninka la yidhaahdo duub Kooriya meesha amarka bixiyay marka adiga maxkamadu wax u kala qaadaysa hadda ma jirtay waxa u kala qaaday dhaqan Kooriya u kala qaaday hadda ninka wixii ay kala qaateen maxaa lagu dagaalamay waxa loo fadhiisay waxay ahayd 12 saac bar hadda oo ninka la yidhaahdo 3 saac oo wax dhiban la joogana gacanta iyo la isu galshay ilaa wixii xageera jira waa laga qaaday wixii kale ninka la yidhaahdo waxay galeen dhaqanay galeen oo marka maxaa lagu dagaalamay dhinacyada inay muddo saacado inta la dagaalamaan dad badan iska dilaan hub iyo gaadiid kala qabsadaan wixii keenay maxay ahaayeen wixii keenay waxa waaye cidda aad dhageysata adiga labadii dhinac oo adiga midna dadkii dhaqanka u ahayd oo labadii dhinac ba laga xaajidoor dhageysatay ay ku fiican tahay inay ka warbixiyaan aniga waxa waaye abadii markii la joojiyay maxaa odayaal la wareegay odayaashiina wixii u kala qaadan laga leeyahay walaalkay marka waxa lagu dagaalay iyo laga leeyahay laakiin ilaa hadda wax weyn oo adiga laga leeyahay wax adiga iska laga leeyahay dhalinyaro xaaja dhalinyaro oo iska laga leeyahay fudayd ku dhacday inay tahay hadda wax weyn oo saasada wali u dhima karo inay meesha ka jiraan waa dareemaya intaas aan kala socdaa waa maasanta waa ku soo gabagabeynaya wixii maanta dhacay oo magaaladii gudaheedii waliba maali ugu muhiimsanaa ah oo dad shacab lagu dul dagaalamay 2 saacadood dagaal socday dhimasho dhaawac badan dhasheen ma kula haboonta ama aragtideeda ma kula tahay in dhaqan iyo habbeelad lagu xaliyo miyaanay ku muuqan ama kula ahayn in la xisaabtan dhabaho dawladeed meesha ka dhaco la xisaabtan laga leeyahay inuu ka waxa loo jooga waaye laakiin dadka dhaqanka iyo laga leeyahay la xisaabtanka labaduba laga leeyahay dawladda waaye dadka xaajada galay
dadka xaajada galay waxa waaye dad dawladda dhiga leeyahay oo ka tirsan dawladda haddii adigu aad u taqaano 2 qofood dhiga leeyahay waxay la gelin ama 3 qofood waxay la gelin dawladda ma gelada u taqaano waa guulideeda Okrabano ayo kaasiha oo kamid ah militariga Soomaaliya wali waxaan ku guda jirnaa isku dhici maanta ka dhacay degmada Kaaraan ee gobolka Banaadir oo ay dad shacab wax ku noqdeen walina ay taagan tahay xiisada arintaasi Janaal Maxamed Maxamuud Qaafo oo kamid ah militariga Soomaaliya waxa uu sheegay in dagaalkaasi ay dawladdu ku guuleysatay in dhinacyadii dagaalamo ee kala qaado isla markaana hadda ay socdaan iyagoo kaashanaya odayaasha dhaqanka waan arrintan la xiriirta waxa uu waramay wariyaheena Cabdullaahi Kulmiye Cadow wallahi muxuu ahay arrintaas waxa weeye waxa isqabsaday oo muxuu ahay isku qabsaday dhul muxuu ahay 2 nin oo qolada muxuu ahay Wacbuulin Abgaala ka soo kala jeeda markay isku qabsadeenna iyadoon waxba dhicin baa la xiriiray waxaana u sheegay inay joojiyaan waxa isku haystaan ayna yimaadaan cidda wuxuu ahay gardarrada lena anagu aan ku garqaybiyoon ilaahdo adaa gardarana ka leexo febel arrinkaas markii aan ku ballanay waxay yiraahdeen waa hagaag dhinacyada kulligoodba markay sidaa yiraahdeenna annaga isku igu soo warceliyeen annaga isku filan adiga kuma soo gaarayso wadna mahadsan tahay ayay ugu yiraahdeen waa gartay kabacdi saas markay dhacday kadib bay xabad isku bilaabeen haye markay isku bilaabeen baan waxaan wacay Generaal Gacmaduule oo aan iri maadaama aan isku community nahay walaalow adiga maaragtay gal aslaax baynaas dhaxdig muxuu ahay abanduuliyaha ciidanka xooga dalkuna saasoo iga codsaday aniga dabadeedna waa u diray Gacmaduule wuuna kala dhaxgalay wuuna kala celiyay wuuna kala diray labadii dhinac saas ayay xaaladdu ku sugan tahay anna waxaan qayb baan ka ahay laakiin ma dhex teginin sababta aanan u dhex teginna waxay tahay aniga in qabiil iyo hayb laygu sunto ma rabin marka saacado badan ayuu dagaalku socday Muqdisho inteeda badanna waa laga maqlay marka maxaa dagaalka sii dheereeyay waxa weeye waxa dheereeyay markii hore inayan farta isa saarina yimaadaan maadaama ay community-ga aan ka soo jeedo kamid yihiin waxaanu qarannimo uma bisla waa maleeshiya qabiil waaye oo macawisley ah si waxaas looga badbaadiyo ayaan uga u iri xasilooni darana aysan u abuurin mar haddii yeeli waayeen warkayga yireen anaga isku filan aniguna dhigahan daad ka gashaday abaaray socotay markay iyagu isku daaleen oo muxuu ahay ay meer yeesheenna waxaan u diray jarankuna waa kala celiyay meel fiicanowna wax barsiiyay waa gartay marka wax khasaara ah ee aad Generaal Qaafo aad la socotid ama aad maqashay inta lagu soo gaarsiiyay waa intee ma sugna waxa weeye warbixin sugan kama hayi labada dhinac kamida waxaan ka war helay in 2 wiil ka dhimatay labana ka dhaawacantay oo ku fakatay ee aysan dagaalka ahayn dhinaca kalena in 3 wiil iyo 3 horeeyo BKM iyo baabuur dhashiika laga qabtay baa la ii sheegay laguna wareejiyay jarankan hawshu hel saaraya niman odayaal oo la shaqeynay waa gartay marka geerida markii la isku daro iyo dhaawaca labada dhinacba intee buu gaarayaa dhinaca kale tood ma ogi aan ciidan ka wareysto wali ma helin laakiin dhinacan warbixinta ka helay laakiin waxay la egyihiin ma ogi laakiin dhinacan wixii ay qabteen 3 wiil oo nolosha ku qabteen oo yan dilin iyo 3 BKM iyo baabuur Cabdibilaahi dhashiika saaran yahay Generaal Qaafo ayo kaasiya wararkii ugu dambeeyay waxa ay sheegayaan in taliska militariga Soomaaliya oo u yeeray saraakiil kamid ah ciidanka xooga dalka oo la aaminsan in dagaalkaasi ay qayb ka ahaayeen waxa kale oo sidoo kale wararka aan helnay sheegayaan
in xildhibaan hore oo baarlamaanka dowlad goboleedka Hirshabelle ka tirsan oo gudbaayo lagu magacaabo oo Kaaraan isagoo dhex maraya gaadiidkiisa ay xabadeeyeen mid ka mid ah dhinacyadii dagaalamayay waxaa dhaawacantay xaaskiisa wararkaanina waxay sheegayaan inuusan wax luga ku lahayn dagaalkii socday balse uu ka soo jeeday mid ka mid ah dhinacyada dagaalamaya heeb ahaan waxaa kaloo wararka ay xaqiijinayaan in dib loo celiyo gaadiid ay dhinacyadii dagaalamayay mid ka mid ahi ay qabsadeen gaadiidkaas oo la qabsaday xilli uu dagaalka istaagay oo ay waawaan socotay wixii warar ay ku soo kordha waan idinla wadaagi doonaa haddii Allah uu dalo idmo